سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضي الملول بعد جوجتان قضبضاد ورركن كم غليدونتان وحكم ذا رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد يا قيلدان أسر رئيس كدري حقق الشينا يا أولا رئيس الوزراء أبي أحمد يا شيخ حقق الشينا إن أفري لباتنكي ساعة لصودا في أول حقن قادين دولة إثيوبيا يدقال خرار كل جرت حقق الشينا يا أولا وهجم هذا سيدوين وقدر أغرق قبل كأوروميا دكتور أبي أحمد يوشي قرها برلمانكا دولة فدرالك إثيوبيا إن حقق الشينا خطر وين كوايان دلوينها إثيوبيا iyadoo sheegay inay ciidamada dawladda ay si weyn ula tacaalayaan dagaal aan joogsi lahayn ay xogagasheena ku hayaan ciidamada dawladda iyo gobolada ay sida weyn uga dhaqaaqaan dagaalka u dhaxeeya xogaga mucaaradka iyo dawladda federaalka Itoobiya ayaa aad u sii xumaanaya maalmihii la soo dhaafay iyadoo dawladdu ay weerar xooggan ku qaaday fariismo ay leeyihiin xogaga mucaaradka ugu tunka weyn sheena iyo oola iyo TPLF ayaa xogaga ugu tunka weynaha ee mucaaradka weyn ku ah dawladda Dr. Abiy Ahmed ayaa habeen iyo maalinba ka seexan laba la yiri xogaga mucaaradka inta badan jabka weyn u geystay ciidamada dawladda iyadoo ciidamada dawladdu ay dagaal aad u khararay kula jiraan xogaga mucaaradka oo gobollo aad u badan isku sii fidinaya sida deegaanada Benishangul Gumuz iyo Walayta Shewa waqooyiga gobolka Oromiya ayada goobahaas oo dhan ay dagaal aad u khararay ka socdaan xogaga mucaaradka dawladdu ay kula tacaalayso ayuu haddana ra'iisul wasaaruhu qayladaan weyn ka diraya xogaga sheena uu sheegay inay si joogto ah weerar xooggan u hayaan dawladda xaalka sheena ay marka ka dambaysa ka sii daraysa isagoo sheegay haddaan isku dubni iyo midnimo la helin iyo wadajir dagaal lala gala xogaga mucaaradka inaan marnana sina looga guuleysanaynin gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa guddiga xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya ay sheegeen inay 90% gobolkaasi ay macaluusha iyo gaajada ku dhufatay ay gabi ahaanba baabisay iyadoo la sheegay dadka gobolkaasi 90% in ay la ildaran yihiin gaajo iyo macaluul iyo amni la'aan gobolkaasi ka jirta iyadoo guddiga xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen xogaga Tigrayga gobolkaasi inay go'doomin aad u ballaaran ay geliyeen dadka gobolkaasi ku nool gaajo iyo macaluul ay khatar u saaran yihiin ee gabi ahaanba baabaan iyadoo gobolkaasi xaaladiisa aad looga deeriyay gaajada iyo macaluusha ku dhufatayna ay sabab u tahay baa la yiri xogaga Tigrayga oo gobolkaasi go'doon weyn geliyay iyadoo gobolkaasi xaaladiisu marka ka dambaysa ka sii daray xogaga Tigrayga oo dawladda Itoobiya ay badan u gacadhaadinayso ayaa marka ka dambaysa la sheegay inay colaada gobolkaasi u horseedayaan markastana ay ku gacan saydayaan amniga loogu guda jiro in gobolkaasi amnigiisa dib loogu soo celiyo dalka si uu xiriir wanaagsan ula yeesho gobolada kale ee dalka Itoobiya go'doonka iyo cunaqabataynta muddada dheer saarana gobolkaasi uga baxo ayaa la sheegay sababta inay u tahay xogaga Tigrayga ee TPLF oo markasta u gacan haadinaya xogag argagixisa oo dalka amnigiisa khatar ku haya dawladda federaalka ayaa ka warbixisay safaradii dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka dibadiisa ku bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud oo ilaa waqtigii la doortay safar shan dal ah gaaray ay dawladdu si guud uga hadashay xaaladda safaradaasi iyo waxyaabaha ay quseeyeen iyadoo la sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inuu dalkaasi uga kurgalay xiriirka inta uu leeyahay ilaalayeen dawladda Soomaaliya iyadoo dawladda hore Soomaaliya aan xiriir wanaagsan la lahayn baa la yiri dalalka uu Xasan Sheekh Maxamuud booqashada ugu tagay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkana ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 7 2022
haddaynu guda galno wararkeeni oo faahfaahsan dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay xogaga Sheena inay dagaal joogto ah ku hayaan xarumaha dowladda ciidamada federaalka Itoobiya ee ka howlgala gobolada kala duwan ee dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa qayladaan aad u sarreysa ka diray xogaga mucaaradka oo ku sheegay awoodooda inay kor u sii korayso, isagoo sheegay inay dagaalada ay qaadayaan xogaga mucaaradka uu yeedhay argagixisada Sheena inay khatar ba'an ku hayso buu yiri dad aad u tiro badan. khatarta Sheena haddaan si wadajir ah looga hortagin dowladaha noocyada kala duwan, dowladaha federaalka ee Itoobiya, dowlad goboleedyada loo yaqaano iyo dowladda federaalka iyo xogaga mucaaradka iyo guud ahaanba siyaasiyiinta dalka Itoobiya buu sheegay haddayna si wadajir ah uga tashan xogaga Sheena khatarta ka soo socota inay dhibaato weyn u geysan doonaan dalweynaha Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay xogaga Sheena iyo mucaaradada waaweyn ee ka jira dalka Itoobiya in ay si weyn iskugu dubariteen wax uu yeedhay ururo argagixisa oo dagaalo ku dhufo ka dhaqaaq ah ku qaadaya goobaha ay bulshadu ku nooshay ama bulshadu ay ku badan tahay. sidoo kale wuxuu sheegay Sheena inay siyaasadeeda iyo ciidamadooda ay ku sii fidinayaan gobollo fog oo dalka Itoobiya, dhalinyaro aad u tiro badan oo dadka Itoobiyaanka ay u gacan haadinayaan si ay dowladda ugu hor yimaadaan ama dagaalo qadar oo ugu qaadaan gebi ahaan dowladda iyo dowladnimada dalka Itoobiya la burburiyo. isagoo baarlamaanka Itoobiya u sheegay in ay Sheena ay khatar ba'an hayso baarlamaanka dalka Itoobiya inuu u soo jeedsado sidii guud ahaan loo midayn lahaa hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Itoobiya. gobolka Oromiya ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo militari oo aad u weyn iyadoo gobolka Shawa la sheegay inay dagaalo qadar ku dhaxmarayaan ciidamada dowladda iyo xogaga mucaaradka ee Oromada, iyadoo xogaga Oromadu ay halkaasi guulo waaweyn ka sheegteen ayna sheegeen inay ciidamo badan oo kuwa dowladda ay halkaasi gebi ahaanba burburkii ugu xumaa ugu geysteen. guddiga xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay gobolka Tigrayga dadka ku nool 90% gaajada iyo macaluushu ay si weyn u saameysay, iyagoo sheegay xogaga Tigrayga inay gobolkaasi go'doon weyn geliyeen gaajada iyo macaluusha. waxyaabaha sababay inay xogaga Tigrayga oo markasta colaada gadaal ka riixaya marnana aan ogolaan baa la yiri in wada hadal lagu soo dhameeyo gobolkaasi colaada xooggan ee ka taagan iyo go'doonka uu muddada dheer ku jiro ay sabab u tahay baa la yiri dadkaasi 90% inay gaajada iyo macaluushu ay si weyn oo la degto ayadoo xaaladda gobolkaasi si weyn looga dayriyay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay socdaal uu dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku bixiyay dalka dibadiisa. afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda safaradii uu dhawaan ku kala aaday dalalka Turkiga, Imaaraadka, Eritrea, Djibouti, Kenya dhammaantood inay ahayd in loogu kurgalo xaaladda xiriirka ay la leeyihiin dalka Soomaaliya dalalkaasi, iyadoo la sheegay dowladii hore Soomaaliya inay xiriir wanaagsan la lahayn dalalka intooda badan. dowladda Soomaaliyana khaladaadkii hore ka dhacay dowladii hore Soomaaliya la saxayay si ay dalalkaasi xiriirkoodii hore ee Soomaaliya u soo ceshadaan. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.